wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa muddo saacado ah warbixin iyo su'aalo ku aadan howlaha wasaaradda ganacsiga isdhaafsanayay. markuu kulanka soo gabagaboobay ayaa warbaahinta qaranka ugu horeyn waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu sheegay in guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha aqalka sare ay warbixin ka siinayeen horumarka wasaaradda ay ku tilaabsatay iyo isdhaafsiga ganacsiga qaar ka mid ah dawladaha deriska iyo kuwa kale. guddoonka iyo guddiga waxaan warbixin ka siinay howlaha ay wasaaraddu wado runtii oo dardar cusub ku socda waxay si fiican maragtay wax nooga weydiiyeen oo aanu annaguna meesha wax noo marayaan ka siinay dareenka hadda dawladdu waday ah in dhaqaalaha Soomaaliya si uu kobco Soomaalidu wax dhoofiso badeecooyinka Soomaaliya loo helo suuqyo ay ugu horeeyaan kuwa wadamada deriska Itoobiya iyo Kenya oo wax badan naga soo galaan iyo sidoo kale wadamada kale inuu ganacsiga la leenahay oo mar walba saan sheego uu ka jiro trade deficit ama dheelitir la'aan ganacsi uu ka jiro. gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Axmed Duxulow ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda ay yeesheen kulan bilo ah oo looga hadlayo howlaha wasaaradda iyo tayada ganacsiga yimaada dalka. runtii waa wasaarad aan isdhihi karo maanta siday u shaqaynayso wasiirku u wado waa sidii saxda ah aan isdhihi karo macnaa higsigooda iyo waxyaabaha hadda oo ay miiska u saaran oo shuruucda oo ay runtii ugu horeyso uguna macno badan tahay sidii dalkan loo kontarooli lahay cuntooyinka soo gelaya iyo waxa soo gelaya oo loo samayn lahay quality controlkii bishii dhoweedna aan aad uga hadalnay haddana ay soo diyaariyeen shirkaddii ka shaqayn lahayd ama waxa la yiraahdo golamiya hay-addii maamulka samayn lahayd ama berritoola la xisaabtami lahayd shirkadaha ganacsiga. runtii waxaan leeyahay waa bogaadinaynaa wasaaradda. guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan bilo ah waxa ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho iyadoo kulankaasina ay uga hadlaan horumarka ballaaran iyo caqabadaha hortaagan wasaaradda ganacsiga howleeda.